munaasabadan oo xalay fiidkii ka qabsoontay hotel Roxan ee magaalada Beledweyne ayaa shirkadda Somtel ku daafuraysay saamiyada shirkadda Somtel ee magaalada Beledweyne kaasi oo lagu magac daray macmiil milkiile noqo. Munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Mudane Cali Shato Cusmaan, maayirka magaalada Beledweyne Marwan Nadar Tabax Maalin, marti sharaf, ganacsato iyo qaar ka mid ah macaamiisha shirkadda Somtel. ugu horeyntii waxaa goobta munaasabada ka hadlay Xaaji Cismaan Dhagaxu Haruun, wakiilka Dahabshiil Group ee gobolka Hiiraan iyo agaasimo ku-xigeenka waaxda ganacsiga ahna madaxa suuqgeynta iyo xiriirka dadweynaha shirkadda Somtel. macaamiil fara badan ayuu leeyahay bangigu, maalgelin badan baan u sameynay iyadoo Dahabshiil ay ka kooban tahay qaybo badan sida xawaaladii oo markii burburku dhacay meel kasta ilaa intaasay Soomaali ay ilaahay kasoo gacdalaha ay badbaadiyeen haddana ay maalkoodii oo aad ogtihiin in shirkaduhu ay dunida iyo dhulal shisheeye ay maal gashan jireen ama ay bangiyadooda dhigaan xoolada lugdali jiray inay u fureen ku aamineen inay dadka Soomaaliyeed ay maaragtaa hantidoodii deymiyaan. dadka gaar ahaan Soomaaliya oo dhan meel walba ka jirtaa taasi. magaalada Beledweyne bangigan 3 sano ayuu ka furnaa. 3 sano qiyaastii international banka iyo microfinance dahab haddii la isku daro lacagaha aan ku maalgelinay magaaladan gobolkan Hiiraan waa ilaa lacag 20 bilyan. in cid hadda ku eebowday ama aan isqabsanay ama hanti ku maqan tahay aysan jirin. iyaguna si sharaf leh ku soo celiyeen. waxaan jecelnaha inaan 20 kale ku darno 40 ama 50 ama 100 milyan gaarsiino ilaa intiisa. waxaan soo kordhinay qofka waxaa laga yaabaa in uu bisha 25 markii la maraayo inuu biilkii ka go'o ama qof hadduu mushaari ahaa uu mushaarkii ka go'o lacagna ma haysto. wuuna qofna waxaa waaye dadka waxaa waaye Soomaali qabay leeyihiin inuu qof wax weydiistana ma rabo. marka waxaa laga yaabaa markaas inuu kugu soo dhacdo yaa kugu dhow oo maanta deynka heli kartaa inaas dhexin. anagoo taas ka duulayno baahidaasna la daboolayo waxaa sameynay barnaamij la dhahayo kaabe muxuu yahay inaad Somtel iyo Dahabshiil oo iswadeersan oo macna iskaashanayo inaad deynka heli kartid. intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Hiiraan Marwo Farxaan Cumar Carte oo aad u bogaadisay waxqabadka shirkadda Somtel. dhinaca ganacsiga iyo shirkadda Somtel haddaan nahay bulshadii reer Hiiraan oo ku faraxsanahay waa ka qayb qaadanaynaa. inkastoo dadka hadday hadda wax maqlaan waxbaa lagu darsadaa forex-yaal badan ay la dhaawaceen, haddana waxaan aaminsanahay Xaaji Cismaan Dhagaxu hanti iska dhaafa carruurta aan madaxda inuu ku aamini karo. ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Hiiraan Mudane Cali Shato Cusmaan oo soo xiray xafladda ayaa yiri way kala duwan tahay tani damaanad bay haysataa. inkastoo oo hadda damaanad aysan ay dowladdayn ayagaaba wixii soo ganacsigii dhamaa wuxuu yeelaa Salaama Bank iyo Dahabshiil iyo bangiyada lamida bangi iyo dhaqaale iyo kayd iyo wax walba waxa uu ahaa waxay ahaayeen shirkaddan iyo shirkada soo raaca. taasi waa intaas. waxaan leeyahay marka saasay kaleenu tahay haddii alla imana kolley anuu dadka ugu horeeya oo Somtel wax ku darsan doonaa kamida. Cabdinuur Cismaan Aadan Carays, idaacadda TV-ga caalamiga SBC magaalada Beledweyne.